السلام عليكم. muuqaalkan isaga ah waxaan kugu bari doonaa arrimo muhiim ah oo ay tahay inaad qabato ama aad ku darsato qorshaha inta sanadkan cusub uu bilowga yahay. Waxa muhiim ah inaad ogaato qof kasta wuxuu jecel yahay wadada iyaga jecel inay noloshooda ay wax u kordhaan. sanad waliba marka uu bilaabo qorshayaal cusub qof kasta dejistaa ama ha u hirgalaan ama yaani u hirgelin taas waa sheeko kale laakiin wuxuu qof waliba uu dejistaa arrimo ay tahay inuu sameeyo sanadka. arrimo uu isleeyahay inuu bayda noloshaada saameyn togan oo fiican ay ku yeelanayaan. muuqaalkan isaga tiraba 10 arrin baan ku sheegi doonaa. 10 ka arrin mid waliba iskiibu muhiimadiisa u leeyahay inaad markaa qorshaha ku darsataa ugu yaraan xisaabta inay kugu jirtaa waa muhiim. 10 kaas iyo waxay kala yihiin ku daawo muuqaalkan haduu ilaahay dhaa. Aniga ugu Quraanka Kariimka dad badan baa waxay jecel yihiin oo waligood baniyadooda waxa ugu jirta marun baan insha Allah ta'ala Quraanka qaybi doona marun baan Quraanka qaybi doona saaxiibkayo ogow waxa hataanad waqti aanad u yeelin iyo xilli aad arrinka isaga aad qabatid waliga waxa si ku hirgeli maaya marka maadaama uu sanad cusub bilaabmaayo ama uu bilow yahayba waxa aad sameynaysaa sanadkan ku darso qorshaha Quraanka xifdigiisu maaha in 30 jisbaadooda qaybtid 10 baad qaybi kartaa half baad qaybi kartaa 15 5 jis baad qaybi kartaa 3 baad qaybi kartaa 2 jis baad qaybi kartaa war hatta jis ama hadaad qaybto intaas xataa wax weynaho awal mid hore u hayn marka Quraanka inaad xifdido sanadkan isaga qorshaha ku darso waa muhiim. laba qodob kale oo aan ka waxba ka fogeyn waxa muhiim ah maadaama qof muslim ah tahay waa in diintaada aanad marti u noqon qof marti ah isku day sanadkan imika inoo bilaabmaya inaad waxyaalaha basics-ka asaasiyaadka ah sida aqeedada oo kale sida fiqiga oo kale ahadiista tafsiirka Quraanka inaha hooseeda lagu tukado waxyaalaha yar iska fudud ducooyinka oo kale siiradii nabiga kaleey salaatu wasalaam in inta aad wax ka barata waa muhiim bal sanadkan qorshaha ku darso inaad islaamkaaga iyo diintaada wax kamid ah aad baratid idamka alle. 3 sanadkan inta uu bilowga yahay qorshaha waxaad ku darsataa oo arrin isaguna muhiim ah inaad luqad cusub aad barato luqadda cusub waxay noqon kartaa luqadda Ingiriisiga hadda adduunka iyo adduunyadii iyo lacagtii iyo shaqadii intuba ay kaaga xidhnaan karto isla sidoo kale idana waxa taa kaba si muhiimsan luqadda Carabiga oo ah luqadii Quraankii iyo shariicadii iyo waxyaalihii diinteena naga xidhnaayo dhani ay waxa weeye ay ku qoran yihiin marka isku day sanadka isaga ah in luqad cusub aad barato Ingiriisiga iyo Carabiga Carabiga ku gala talaha marka daban Ingiriis aad baratid hadda Ingiriis aad hore u haysiina sanadkan ka dhigo sanadkii Carabiga aad baranaysid. Ariga afraad waxa uu yahay waqtigan hadda aynu joogno waxa muhiim ah inaad ogaato waliba xisaabtaada aad ku darsato shahaada hadii aad sidato jaamiciyo digriga aad soo diyaarsatay in inta badan aan wax lagu helo oo shaqo ah aanay jirin waa iska yaani hadaan si kala dhigo decor guriga aad ku qurxisatid waxa weey shahaado noloshaadii waqti kamid aad soo siisay ay noqonaysaa laakiin in badan waxa dhacday in aanad shaqo ku helin marka waxa fiican oo muhiim ah in aqliyada aad digrigan ku shaqo tagay inta iska bedesho bal sanadkan imika inoo bilowga isku day inaad xirfado kale aad baratid koorsooyin degdeg ah isku day inaad barato kuwaas oo ka saacidaya in xoogaa shahaadadaadii ay xoojiyaan oo aad noqotid qof aqoon badan leh qualification fara badan ka sita waxa uu ku shaqeyn rabo marka isku day inaad qaadatid اللهم صل على certificate ama shahaado yar ama diplom aad ku baranaysid skill ama xirfad yar oo aad hadhowde aad ku shaqo tagi kartid halkeen ka barta dawaadiga fariidnimadaada ku xirantay suuqa gal maciida wax lagu barta soo warayso caafimaadka dad jecesha maciid fara badan dugsiyo badan baad helaysaa IT-ga dad jeedo iskuulo badan lagu bartay helaysaa business-ka iyo ganacsiga dad jeceshay meel badan lagu bartay helaysaa design-ka iyo waxa ay qurxinta iyo naqshadaynta meel lagu bartay helaysaa aday ku taala waxaad jeceshahay bar aad isleedahay suuqeeda dawad ku shaqeyn kartaa ka diyaari marka course 2 iyo 3 ba intaanu sanadkani dhamaan waxa inta badan aan arkay waliba dhalinyarta aan ku arkay dadweynaha jaamacadaha ka soo qalin jabinayay ma waxaad aragtay ismaan lahayn dawad arki kartaa qof jaamacad ka soo qalin jabiyay alif ba'dii computer-kan aan aqoon alif ba'da soo alif kalka ugu hooseysa aqoonta maaha alif ba'da computer-ka ma yaqaan sida word wax loogu qoro ma garanayo wordka sida loo isticmaalo hatta hadii inuu garanayo sida wax loogu qoro PowerPoint-ga hadalkiisa bada Excel-ka iyo kuwa wax lagu diyaariyay waaweyn ka habal sheeginba sida ugu inuu hadii aad jeceshahay in xogaa mustaqbalkaaga shaqaad dhisatid aqoontaaduna ay noqoto mid noloshaada wax ka tarta shaqo ahaan iyo marada aad computer-kaaga wax ku qabsanaysid intaba isku day inaad wax ka barato computer-ka waxyaalaha basics-kiisa sida office-ka oo kale waxa weeye dadku baahanayaan application-ada iyo software-ska inta badan aadka loogu isticmaalo Word-ka oo kale PowerPoint-ka iyo Excel-ka iyo waxyaalihii soo raaca isku day inaad barato marka xoogaa bal naftaada ka jahilsaa waxyaalihii computer-ka ka
khuseeyay intii hore waxa lagu soo qaadanay dhamaantood waxay ahayn waxbarasho mashaariic iyo waxa way farsamooyin aad baranaysid qodobkan wuxuu ku leeyahay isku day inaad samaysato hoy amaba ilo dhaqaale oo ka duwan kuwii hore haddii awal aad shaqaale aad ahayd isku day inaad samayso meel kale income iyo lacag ay ka soo gasho isku day haddii waxa weeye aanad shaqo haynin in aad isku daydo inaad hal abuurto waxyaalaha ay shaqo kugu soo gali karto haddaan ku soo koobo wuxuu ku leeyahay qodobkani samayso ilo dhaqaale oo ka duwan kuwii hore haddii aad hore u shaqaynaysay ama aad hawl kale aad awal haysay haddii aad bila shaqo tahayna mala mashruuca koobaad adiga ku sugaya waxa weeye inaad shaqo hesho oo liiska ku darsato sanadkan isaga ah qodobka toddobaad waxa uu yahay jirkan hadda aad ku shaqaynaysid wax ku baranaysid aad ku shaqaynaysid aad ku fikiraysid xaq muddo kugu leeyahay oo hadhow laga xisaabinayo marka waxaad isku daydaa in xuquuq jirkaaga wax kamid aad siiso oo ay kamid tahay xoogaa malaa waxay gaadhay ana isla hadlayo taasi gaar ah malaa waxay gaadhay waqtigii iyo xilligii aad ku day lahayd inaad jirkaaga aad dhisto amaba aad jimicsi aad gasho amaba bahweynta sportska inaad ku biirto marka ama kubad ciyaartaya ama socod fara badan samaysaya ama orod joogta ah waxa weeye qabataya amaba gym ku biirtay aday ku taalaay isku day xoogaa jirkaaga inaad dhisto si hadhowda marka aad u weynaatid waa haddii aad qof dhalinyaro tahay jirkaaga oo dhisan aad xilliga daadada aad la gaadhay oo aanad noqon col hortii jabay adoon cimrigii horeba gaadhin adoon da'dii weynayd baan gaadhin yaraan qof ku burbura si aanad u noqon marka qodobkan wuxuu ku leeyahay isku day inaad bahweynta sportska aad ku biirto isku day inaad caado iyo dhaqan iyo anshax joogto ah aad samaysatid sanadkan cusub dhaqanka iyo caadooyinka horaan jeclay inaan uga soo hadlay inaad soo aragtayna waa suurtagal haddii kale dib baad ugu noqon doontaa si aad u aragto muuqaal fiican oo ka diyaariyay dhaqanada wanaagsan iyo dhaqanada xunxun kuwa fiican ay tahay inaad ku sifaysnaato iyo kuwa xun ay tahay inaad iska ilaaliso marka caado markaan ku leeyahay waa shaqo si joogto ah qofku u samaynayo tusaale ahaan kala shanta salaadood buu tukataa waa shay caado soo noqnoqonaya kastoo cibaadada iyo caadadu ay kala duwan yihiin waxa aad samaysaa tusaale ahaan kale maalin walba waxaad isticmaashaa baraha bulshada Facebook aad gashaa tusaale ahaan kale waa caado iyo dhaqan joogta marka isku day caado iyo dhaqan joogta laakiin qaar tuganahay inaad samaysato sida akhriska oo kale sida xilli hore inaad subaxii kacdo oo kale sida inaad jimicsi aad samayso oo kale sida inaad naadi waxa weeye wax akhris aad ku biirto oo kale على أي كل حال واحد دونها نقطة اسكت ضي إن رقم عصبات سميسته رقم دل لكن الله شاهد حكسو كلني إن بدن بينه كده لنا نضح حن وحوي عن معناها بدن عن لهين قضب كوجد بيح وكل هو قضب إسكي حيسوله اسكت ضي سنة كاي سجى بالحوجة هدي ده إنه ناتشعش ده ديجو هرمها حسيا هاي إن تسميسيد فيسبوك بيج كاسوات كسو بسيط أفكار هذا يا أعراض هذا يا حيالها تشعش إن تبرشة هذا أدلو دكتو أما بقتال مكري سيدو حمو قري كرتو حقا ولا جاجونا كسين هذا يساعد هنا اسكت ده إن تسميسيد يوتيوب channel كسو قد بني سيدو حيالا حيصله أو مضادنا وحو تراعي أديك أنا نقون عاي صدقة وحوة وحياة برتي وحياة تغاني مركا فيسبوك بيج واتسامين كرتا يوتيوب channel باتسامين كرتا سكونا دي سنة كائنات بالحوغة اسكو تجاوسو عالم كاس أحوي برها بالشدة أدي أدنا رجيني طبعا كاقض أيوح كو ترين انتينو كو كرومي نومد آن كان هين وعنو كو هلتقينا السلاسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما لنتهد هواناتو أما هبين كاي قدي واي هي يا رب واي أوب ولما يسعطودي دونيس ورواي واي